muhiimadaydu waxa weeye inaan idin cadeeyo kow in dekada Boosaaso ay shaqeynayso shaqadina caadi u socoto dhacdo kasta oo dhacdana aanay dawladdu maaragtay ay arintaas ay tahay arin xasaasi ah cidina jooji karin shaqadu caadi way soconaysaa dhacdadii ka dhacday bishii shalay halkan u dhow dekada xogaa ka baxsan oo guriga biyano todobadii iyo barkii dhacdada runtii dhacdo aad baan uga xunahay waana ka taxsiyeynayna cid kasto ay ku dhacdeen ha noqoto ninkii lagu dilay iyo ciidankii runtii ku dhaawacmay iyo nin kale oo Hindiya runtii ku dhaawacmay aad baan uga taxsiyeynayna saddeed ajnabi ay ahaayeen qaarkood xogaa marka hore way iska dhacdaa laakiin kulli hal qof kama dhoofin dadna way train gareeyeen runtii waxa weeye hadii qof ama ooba waxaan dhacaan khasab waxa weeye inay shaqadii dadkii kale ama dadkeeni way yaqaaneen waxaan way la baray runtii anigu ma aaminsanay inuu ku sameynayo wax istaaga maalgelinta Puntland hadii hesho amni iyo hadii maaragtay amnigeeda ka adkaato waxaan u maleeyaa waa maalgelinta caadi weey meel kasta waa ka jirtaa meel kasta adduunka dib waa ka jirtaa maalgelinta anigu u maleyn maayo wax isbedel inuu ku sameynayo ilaa haddana waan ka wada hadalnay madaxdii meesha intii anaga ila shaqeynaysay waa dhacay kiisa kani laakiin ujeedadoodu hebel baa dhintay haday tahayna waa yani uu istaagaya u maleyn maayo waxaan u maleynayaa heshiis kayskeena waa kays maxaan ku yiraahdaa ninku muslim buu ahaa wallahi kulli baa anigu ma arag laakiin masaajidka waa la igu sheegay in Ibrahim la yiraahdo saga ay sheegay muslim baan haybigu yiri converted baan noqday to muslim from Christian to muslim ninka tigi bahalkii Ibrahim baa la yiraahdaa dawladeedii waxay u ogtahay saga ay sheegay masaajidkana waa la igu sheegay wax inta dhaafsiisana ka sheekay ma jiro runtii laba arrimood dadka oo sheegaya horta heshiis la qariyay ma jiro heshiis aanu qarinay ma jiro heshiiskii aanu saaray Puntland ay saxeexday isagoo English version ah iyo isagoo Somali version ah baaqlimaanka Puntland baa haya akow waxa haysa maxaan ku raahdaa 66 xildhibaan ee la soo wakiishay baa gacanta ku hayay la socda waxaan arkay maaragtay dadka hadlaaya oo leh dawladdu ha soo saarto heshiiskii cusbaa iyo heshiis qarsoon ma jiro waa ay taas wax qarsoon ma jiro heshiiskii aanu ka ansixinay baarlamaanka oo office kasta yaala oo bush kasta yaala 100 jeer ma ka hadlay ayuu heshiisku weey hadii wax lagu dareeyay hadii wax laga bedelayo hadii wax dheeraad ah anagu itaalka intaas aan sameeyay